بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada qaybta labaad cashirkii ku saabsanaa xanuunka cagaarshowga oo aan kaga soo hadalnay qaybtiisii hore waxa uu yahay cagaarshowga waxyaabaha keeno astaamaha lagu garto siyaabaha lagu kala qaado iyo in talaal ay leeyihiin iyo in kale qaybtan waxaan kaga hadlaynaa insha Allah talaalka oo aan kaga jawaabayno su'aalooyin muhiim ah siyaabaha loo baaro iyo siyaabaha loo daaweeyo iyo dhibaatooyinka uu keeno haddaan la daaweynin sida hore usoo sheegaba xanuunka cagaarshowga nooca B-ga iyo nooca A-ga ah talaal ayay leeyihiin waana xanuuno laga hortagi karo nasiib xumo nooca C-ga ah ma lahan talaal haddii hal mid aan ku bilaabo iyadana muhiim ah markii lagu dhahayo B iyo A iyo C waa xanuuno beerka ku dhaca aanan shaqo isku lahayn dadka qaar ayaa u fahansan fikrad qaldan oo ah A waa markuu khafiif yahay markuu xumaado B uu noqdaa B haddaan la daaweynin C isku bedelaa taas waa fikrad qaldan marka talaalka waxaa la siiyaa qofkii xanuunka aanan jirkiisa hore usoo marin dad badan waxaan arkaa isbitaalka imaanayo oo dhahayo cagaarshow laga helay inaad talaal qaataa rabaa haddii inta cagaarshow lagaa baaray oo lagaa helay macnaheedu waxa waa talaal ma baahnid talaalka waxaa loogu talagalay ka hortag hadii already xanuunka jirkaaga laga helay oo wax laga hortagay ma lahan waxaa muhiim ah in la talaalo dadka aad la nooshahay oo khaasatan xaaskaaga oo kale talaalku waa muhiim caruur iyo dad waaweyn baa la talaalaa waxaa la qaataa 3 jeer marka ugu horeyso oo talaalka lagu siiyo haddana kan labaad waxaa lagu siinayaa bisha ku xigto waa in 30 beri soo wareegato kan saddexaadna waxaa la qaataa 6 bilood kadib haddii talaalka aad hilmaantid waqtigiisa kadib dhacdid macnaheedu maahan inaad talaalka aad kasoo bilaabaysid haddii kow inuu noqonayo markaad soo xasuustid ayaa lagu siinaa haddii matalan kan labaad aad hilmaanto kale kan labaad markaad soo xasuustid ayaa lagu siinaa kadibna kan saddexaad waxaa lagu siinaa 2 bil kadib kii labaad markii lagu siiyo marka taas iyadana muhiim waaye dad badan ku wararsan oo dhahayo xisaabtu ay qaldantay haddii koow la soo bilaabo midda kale iyadana muhiimka waxaa waaye haddii talaalka si qaldan aad xisaabta si ka qaldanto oo mid dheeraad lagu siiyo wax dhib kuma keenayo soo talaalka mid dheeraad ku dartid xanuunna kuma keenayo dhibna kuma keenayo mararka qaar waxaa dhici karta in qofka la siiyo wax la yiraahdo xoojiye oo ah markii talaalka 3 xab aad qaadatid oo muddo ka soo wareegato maybe 5 sano kale in laga yaabo difaacaada inuu daciifo oo la siiyo qofka xoojiye saa darteed waxaa jira baaritaan la sameeyo oo lagu ogaanayo qofka in uu talaalka uu qofka siiyay difaac buuxa oo dhameystiran baaritaankaas loo yaqaano anti HBs oo lagu ogaanayo difaacaaga meeshuu joogo ama immunity-gaaga oo la siiyo dadka talaalka markii xoojiyaha la siinayo kale iyo markuu qofka iska shakiyo kale inuu talaalka la siiyo kale talaal uu tayo lahayn iyo waxyaabahaas kala badan baaritaankaas la sameeyo hadda u gudbo qaybta baaritaanka baaritaanka iyo daawada horta badanaa way isla socdaan baaritaanka badanaa la sameeyo waa kan loo yaqaano screening-ka oo ah in qofka la iska ogaado horta in xanuunkan jirkiisa ku jira in kale badanaa waa mid kala sameeyo marka qofka dhiig loo shubayo kale haddii marka kaas uu positive sheego macnaheedu ma ahan in xanuunkaasi uu u baahan yahay daawo in isla markaa laga siiyo taas iyadana waa fikrad qaldan oo dad badan oo daawo soo doonanaya arkay oo dhahayo waxaa laga helay dhiiga shubi rabay xanuunka laga helay marka daawo rabaa midda kale xanuunka cagaarshowga B-ga kaasaan xoogga saaraya maanta maadaama uu xanuunka aad noogu badan baaritaanadiisu waa kala noocyo badan yihiin hal baaritaan ma lahan mid waxaa lagu ogaadaa inuu xanuunkan kusoo maray mid waxaa lagu ogaadaa inuu jirkaaga difaac uu u leeyahay mid waxaa lagu ogaadaa inuu xanuunkan kugu cusub yahay ama inuu kugu daahay mid waxaa lagu ogaadaa inuu beerka dhib ku hayo in kale mid waxaa lagu ogaadaa inuu fayraska uu tarmayo active yahay mid waxaa lagu ogaadaa inuu tirakoobka oo fayraska la tirakoobo marka baaritaanada mid walba uu macno ku fadhiyaa oo wax oo dhan lagama wada baarayo laakiin markii laga helo waxaa muhiim ah in laga baaro 3 baaritaan mid kood waxaa horta beerka shaqadiisa in la fiiriyo oo ah horta xanuunkan xanuun dhib kugu hayo miyaa oo beerka saameyn ku yeeshay shaqadiisa kaasoo la fiirinayo dheecaanada beerka haddii cilad ay ka jiraan waxay kaloo muhiim u tahay daawada shuruudaha ku xiran in la bilaabo ay ka mid tahay in la fiiriyo beerka dheecaanadiisa inaysan kacsanayn mid labaad waxaa waaye fayraska laga helay tirakoobkiisa in la fiiriyo oo badanaa haddii uu 2000 ka badan yahay dhiigga beerkana uu kacsan yahay especially dheecaanka loo yaqaan ALT daawada in lagu bilaabo ay u badan tahay baaritaanka saddexaad waxaa waaye in la fiiriyo inuu xanuunkan tarmayo oo active yahay kaasoo iyadana dhiigga laga baaro oo lagu ogaanayo in xanuunkan active yahay marka waxyaabahaas oo kale adiga ma kala fahmi kartid dhakhaatiirta ayaa taqaana marka haddii xanuunkan lagu sheego waxaa habboon inaad u tagtid dhakhtar aqoon u leh xanuunkan si uu baaritaanadaas
loo sameeyo kadibna talo lagu siiyo. Dadka badankood daawo uma baahno, waxa daawo u baahan way yar yihiin. dadka badankood waxaa waaye waa lala socdaa oo waxaa la yidhahdaa 6 bilood ama inkastoo ay ku xiran tahay xaaladda qofka ama sanad in la ballamiyo oo la yidhaahdo soo doono baaritaan oo xaaladaada la soco ayaa lagula taliyaa. midda kale waxaa waaye daawada waxay leedahay waxyaalo badan, marka qofka marka la siinayo waxaa shardi ah inuu u baahan yahay. mideeda kale markuu qaadanayo la socda ayuu u baahan yahay si loo ogaado daawada laftirkeeda inay wax tarayso iyo in kale. sidoo kale daawadan xanuunka ma ka saarayso jirka, waxay hoos u dhigtaa oo keliya viruska tiradiisa. So hadafkeedu waxaa waaye in viruskan ay gaarsiiso heer haddii dhiig laga baaro aan la arki karin, taasoo yareynaysa xataa jaaniska in xanuunkan laga qaado. xanuunkan marka haddii la daaweyn muxuu keeni karaa? xanuunkan waxa ugu dhib badan uu keeni karo waxaa waaye waa 2 shay: inuu beerka howlgabiyo oo beerka marka hore wuxuu ku sameynayaa wax nabra ah oo loo yaqaano cirrhosis. beerkii jilcanaya wuxuu yeelanayaa qolfoof, shaqadiisa howlgabayso wuu adkaanayaa kadibna wuu shuuqayaa. cilada labaadna waxaa waaye inuu kansar u bedelo, kaasoo loo yaqaano kansarka beerka ku dhaco oo ka dhasha cagaarshowga. BEC saan hor usoo sheegaba kansar ayay keenaan. marka waxaa muhiim ah in lagu saaro ultrasound ama liver scan oo lagu ogaanayo inuu beerkaaga muuqaalkiisa isbedelay, inuu nabro yeeshay, inuu adkaaday, kaasoo lagu ogaan karo in xanuunkan uu isbedelayo iyo in kale. waxaa kaloo la qaadaa dhiigag oo lagu baaro kansarka beerka oo lagu ogaanayo inuu dhiigagaas ay kacsan yihiin, kaasoo xataa sii sheegi karo in xanuunkan uu soo jiro iyo in kale ama kugu soo socdo. haddii kansar laga helana oo la confirm gareeyo, waxaa lagu confirm gareyn karaa in beerka laga qaado dheecaan, kaasoo lagu ogaanayo inuu kansar jiro, isagana daaweyn gooni u leeyahay. hadduu beerka marka uu fail garoobo oo howlgabo, cillado badan la isku arkaa oo hore aan uga soo hadlay, kaasna qaab daaweyn kale ayuu leeyahay oo ka baxsan daawadii viruska lagu yareynayo. marka intaasaan kusoo kooban insha Allah. wixii su'aalaha xanuunka ku saabsan aad qabtaan fadlan videogan qaybtiisa commentiska kusoo qora, laakiin waxaa muhiim ah inaan waxyaabahaas aad weydiinaysa aanan uga soo hadlin qaybtii hore iyo qaybtan. insha Allah waxaan isku dayaa markaa waqti helo inaan qayb gooni ah su'aalahaas aan kusoo qaato, maadaama xanuunkan uu aad ugu badan yahay bulshada, dadkan ay qabaan su'aalo badan. waana mahadsantihiin.